وبركاته لما waxaan salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay munaasabadan muhiimka quruxda badan ee dhamaantood salaan kadib anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan baynu ku jirro toddobaadkii xorriyadda waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed wiigan muhiimka inoo ah wiigii xorriyadda 26 Juun koodii Luulyo maalmahaas oo runtii muhiimad weyn inoo leh marka waxaan leeyahay hambalyo salaan kadib waxaan ku raacsanahay dadkii hortay hadlay muhiimadda hawshaan la qabtay ay ahayd doorka guddiga doorashooyinka Puntland uu qaatay oo runtii filashadii marka la fiiriyo caqabadaha jira iyo xaaladda iyo mataqaanaa duruufaha lagu shaqaynayay runtii natiijo ka badan soo saaray sidaas la mid ah keligood kuma filaadeen dhammaan ururada siyaasadda ee qaybta ka ahaa hawshan la'aantood waxaan anana oranaynaa natiijada quruxda badan ee lana wadaagay ma soo baxdeen waayo run ahaantii door aad muhiima oo weliba isxilqaan iyo xilkasnimo iyo hawlkarnimo iyadoo duruufo adag oo aan ururada loo xilqabin ay ku shaqaynayaan iyadana alla naguma qadin natiijada maanta ay caawa inoo soo bandhigtay guddiga doorashooyinku waxaan leeyahay guddiga doorashooyinka iyo ururadooda iyo dhammaan intii ka qayb qaadatayba hambalyo runtii waxaa la qabtay hawl ballaaran oo aad iyo aad u ballaaran oo dhabar adeeg lagu qabtay dadka la diiwaangeliyey duruufo adag ayaa loo maray in heerkaas guusha la gaaro aad iyo aad baynu ugu habboonaan lahayd codbixintuna inay sida ugu dhaqsaha badan u raacdo ugu yaraan xilligii guddiga doorashooyinku jadwalkiisa uu ku qoray ee la wadaagay ururada taasoo aan runtii ku adkaynayo waayo sidii axyaarta iga horreysay yidhaahdeen dadka tirada badan ee intooda badan reer gurigaaga u badan ee meelaha roobka ee ka da-ay isugu tegay dadka kalluumaysatada ee xeebaha ka yimi ee u soo baxay dhinaca miyiga iyo tuulooyinka haddii muddo dheer ay u dhaxayso codbixinta hadda iyo waxaan ka wadaa diiwaangelinta iyo codbixinta waxaa dhici kartaa dadkaasi inay diga rogtaan oo dad badan aan loogu tegin goobii hadda iska diiwaangeliyeen natiijada codbixintuna aysan sidan ugu badnaan sidaa aawadeed anuu og inay jiraan caqabado dabraya ama arrimo badan oo dabraya in guddigu ku dhaqsado sida xeerarka doorashooyinka uu jira oo habraaciya leh oo mararka qaarkood laga yaabo inay caqabad ku noqdaan horsocodka haddana waxaan aad u jeclan lahaa arrintaas in la xoojiyo haddii la hayno arrinta cadaaladda iyo arrinta la xiriirta maxkamadda walaalahay baa la qabaa dowladda waa ku bogaadinayaa barnaamijkan inay bilowday laakiin waxaan oran lahaa dowladda reerka wadacada waxaa loogu daro kuma filla hawshaani dowladdu inay yacnaha ay ambaqaado way ku mahadsan tahay laakiin waxay u baahan tahay waqti iyo dhaqaale iyo dadaal iyo abaabul intaan ka badan hadday noqon lahayd ururada hadday noqon lahayd guddiga doorashooyinka laftigiisa oo baaxad intaan ka badan ru'aantii u baahan si hadda 3 degmaa la joogaya haddii kontaga aynu u dhaqaaqno oo dhan waxa weeye waxaa suurtagala waxaynu hadda ku shaqaynaynay inaysan ku filaan waxaan markaa ru'aantii oran lahaa halkaas dadaal intaan ka badan ayaa looga baahan yahay ururada runtii aad bay mahadsan yihiin runtiina haddiiba isxilqaan iyo duruufahaas jira oo noocaasa iyagoo taagan guulaha intaa la gaari karo waxaan qabaa shacabkeennu haddaynu hore uga dhaqaaqno wax badan oo wanaagsan aynu qaban karno sidii dadka iga horreeyaba ay runtii xuseen lagama aamusi karo doorka dumarku ay ku yeesheen natiijada soo baxday xaqiiqadana in badan baynu ogeyn yacni dumarku inay qoyska udubdhexaad u yihiin maantana haddii ay ka muuqdeen statistikadii meeshaan ka muuqatay hambalyo baan leeyahay iyagana
waqtiga kooban wax badan oo muhiim ah ayaan runtii rabnay inaan la wadaagno dadka laakiin aad iyo aad baa umahadsantihiin waa islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi